kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka rajo qaran TV qodobada aad ku daawan doontaan warka rajo qaran waxa ka mid noqon doona faafayna dheeraad oo ka soo baxaya dabka kacay baqaar lagu kaadiyo hubka ciidamada galmudug ra'iisul wasaare qeyre oo beeniyay inay awood u adeegsadaan mucaaradka dawladda askar ku geeriyootay qaraxyo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose aqalka sare oo soo farageliyay khilaafka u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo Puntland sheekh Soomaaliyeed oo ku dhaawacmay qarax oo lagu dabiibayo isbitaal ku yaala Masar Mareykanka oo duqeyn cusub ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe qoys kale dhulka isku hayaan dawladda iyo Muuse Suudiyaal oo xog la yaab leh soo bandhigay wasaaradda badroolka dawladda federaalka oo isku koobtay wax ka bedelka sharciga shidaal iyo qabiiro laga ceeriyo shaqada iyo sidoo kale dalxiisayaashii ku dhaawacmay shil ka dhacay Boortaqiiska oo loo duliyay dalkooda hooyo intaasi waa qodobada aad ku daawan doontaan warka rajo qaran TV haatan u diyaar garoobay inaad daawataan isagii oo fidsan halkani waa rajo qaran waa channel news and information is all over the world وتاريخ هونك قاعد لوك وعنكوا ورر الأخبارات أنا أعرف اللغة العربية شوف الأخبارات العالمية التطور سلام مركب عنكوا له سبسكرايب له إيه كذا ولي هذا الصور كان مشغول كأي حاجة ما كذا بقول له سبسكرايب مدح هذا واحد سبسكرايب بحق أي حاجة لو راعي لو هذا مشغول كتاعي سلام مركب سبسكرايب له سلام ورجع رجع قرن بالليل أنا أريد أقول شيء إنه كوينو هذا أقول هذا هذا كلا صار كرر سادين إسقوقنا رجع قرن كل نو سأعطيها شو every word about every current news all over the world taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 12 bisha afraad sanada 2019 aynu ku bilownay warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dab qasaare geystay oo maanta ka kacay baqaar lagu keediyo hubka oo ay leeyihiin ciidamada galmudug kaas oo ku yaala deegaanka Docol ee gobolka Mudug deegaanka Docol oo qiyaastii u jira 40 kiiloomitir magaalada Gaalkacyo waxaa daminta dabkaas oo ka bilowday koronto ku guuleystay maamulka deegaanka Docol iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan dabka uu ka dhashay koronto isla markaana qayb ka mid baqaarka uu saameeyay sidoo kalena ay qarxeen qaar ka mid ah hubkii ku jira baqaarka ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka galmudug oo ku aadan dabka ka kacay baqaarka lagu kaadiyo hubka ciidamada galmudug ee ku yaala deegaanka Docol ee gobolka Mudug dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa been abuur ku tilmaamay in xukuumadda Soomaaliya ay awood u adeegsato mucaaradka aan hubaysnayn ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinaya TV-ga Universal ayuu sheegay in amarka dawladnimada uu yahay in markii la doonaya in dhaqaalaha horumarin lagu sameeyo in laga fogaado musuqmaasuq taasina ay hormuud u tahay la xisaabtanka dawladda si kastaba hadalka ra'iisul wasaare Qeyre ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda federaalka Soomaaliya lagu dhaliilo in ay awood ku muqooniso siyaasiyiinta mucaaradka dhinaca kalena faafayno dheeraad waxa ay ka soo baxayaan qarax ka saaray isugu jira dhimashada dhaawac kaas oo gaadiid ay la socdeen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya lagu leegtay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose qarax koobaad oo ahaa minada dhulka lagu aaso ayaa ciidamada ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya waxa lagu leegtay deegaanka Sabiib ee isla gobolka Shabeellada Hoose xilli ciidamadu ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo howlgallo ay ku baadigoobayaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab wararka la helayo ayaa waxa ay tibaaxayaan in qaraxaas ay ku geeriyoodeen ilaa 6 askari tiro inta dheerna ay ku dhaawacmeen waxaana askarta geeriyootay ku jira sarkaal ka tirsan ciidamada militariga waxaana la sheegay in qaraxa uu qabsaday gaari nooca dagaalka oo ay ciidamada la socdeen dhinaca kale qarax miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa la leegtay gaari nooca booyada kaas oo la sheegay inuu shidaal u siday ciidamada Bangraft ee Mareykanka uu tababaray kuwaas oo ku sugan saldhig ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha Balidoogle ee gobolkaasi Shabeellada Hoose ila wareediyo ayaa xaqiijinaya in qaraxaas ay ku geeriyoodeen 2 askari tiro kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena burbur xoogan uu gaaray gaariga booyada ah ee qaraxa la leegtay Al-Shabaab ayaa sheegay mas'uuliyadda qaraxyadaas ka kala dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose iyagoo oo sheegay inay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dawladda geesta kalena xubno ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa soo farageliyay khilaafka xilligan u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland kadib markii Puntland ay diiday sanadkan ka qaybgalka imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya xubno ka socda sanatarada aqalka sare ayaa kulan gaar ah waxay la qaateen wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre iyagoo kala hadlay imtixaanka dawliga ee dugsiyada sare iyo sidii loo mideyn lahaa sidoo kalena xal looga gaari lahaa khilaafka soo cusboonaaday sanatarada deegaan doorashadoodu tahay Puntland oo kulanka ka qaybgalay ayaa sheegay inay u
ambabaxayaan Puntland si la iskula meel dhigo arrinta imtixaanaadka midaysan. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa dhankiisa waxa uu xusay in Puntland ay waayay aragnimo dheer u leedahay arrimaha waxbarashada, sidoo kalena uu u rajeynayo in xubnaha aqalka sare ay keeni doonaan isku soo dhawaansho wasaaradda waxbarashada iyo maamulka Puntland u dhaxeeya. khilaafka ka dhex taagan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa soo ifbaxay toddobaad ka hor kadib markii wasiir Cabdullaahi Goodax Barre uu sheegay in Puntland sanadkan ay diiday ka qaybgalka imtixaanaadka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. geesta kalena gudoomiyaha ururka majmaca islaamka ee culimada Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Cali Caynte ayaa la dhigay isbitaalka jaamacadda Al-Azhar University Hospital ee degmada Naasir ee magaalada Qaahira si looga daaweeyo dhaawacyo culus oo ka soo gaaray qarax bishii la soo dhaafay Maarso 28 ka dhacay meel ku dhow xafiiskiisa oo dacalka ku haya wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. hormuudka jaamacadda Al-Azhar Dr. Maxamed Al-Maharazawi ayaa ku booqday isbitaalka si uu hubiyo xaaladda caafimaad Sheekh Yuusuf Cali Caynte iyo in uu arko adeegyada daaweynta ee uu baahan yahay. hadal ka soo baxay xarunta warbaahinta Al-Azhar University ayaa lagu sheegay in arrintaasi timid kadib jadwal ka shaqeeyay imaamka weyn ee Al-Azhar Dr. Ahmed Al-Taib si loo daweeyo Sheekh Caynte. xarunta warbaahinta Al-Azhar waxay sheegtay in markii uu Sheekh Yuusuf Caynte soo gaaray Qaahira sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyo baaritaano muhiim ah iyo barnaamijka daaweynta muhiimka in loo fidiyo. isbitaalka jaamacadda Al-Azhar ayaa loo aqoonsan yahay mid kamid ah isbitaalada ugu waaweyn dalka Masar iyo guud ahaan dalalka Carabta. si kastaba haatee qaraxa uu Sheekh Yuusuf Cali Caynte ku dhaawacmay oo ka dhacay Muqdisho bishii Maarso 28 ee sanadkan ayaa waxaa la tibaaxaya inay ku geeriyoodeen ugu yaraan 15 qof iyadoo 20 kalena ay ku dhaawacmeen. dhinaca kalena taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in Mareykanka uu maalin ka hor duqeyn ka fuliyay meel ku dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Dhexe ee Soomaaliya halkaas oo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. qoraal oo ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu kaashanaya dowladda Soomaaliya ay wadaan dadaalo lagu wiiqayo awoodda Al-Shabaab. qoraalka ayaa lagu yiri 2 sanadood ka hor Al-Shabaab ayaa haysatay xornimada dhinaca dhaqdhaqaaqa taasoo ka caawinaysa inay barakiciyaan oo ay argagixiyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dooxada webiga Jubba iyo meelaha ku dhow Kismaayo. laakiin maanta meelahaasi oo dhan waxaa laga sameeyay fariisin ciidan oo u diiday Al-Shabaab inay si xor ah weerar u soo abaabulaan. ku-xigeenka madaxa howlgallada Africom William West ayaa sheegay in howlgallada iyo duqeynta Mareykanka ee lagu xaqiijinayo badqabka fariisimaha ciidamada dowladda Soomaaliya ay horseedeen in meelaha laga qabto Al-Shabaab ay ciidamada ku sii nagaadaan isla markaana ay u suuro gelisay ciidamada Soomaaliya inay weeraro xoreyn ay ku qaadaan dhul Al-Shabaab horey u haysteen. Mareykanka ayaa sheegay in duqeynta ay Jubbada Dhexe ka fuliyeen shalay ay ku dileen 2 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab dad rayid ahna aysan waxba ku noqon. qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka uu sii wadayo inuu Soomaalida iyo ciidamada AMISOM kala shaqeeyo sidii mas'uuliyadda amni ee muddada fog loogu wareejin lahaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. geesta kalena qoyska marxuum Maxamed Cali Dacar oo ah siyaasi hore oo ka tirsan ururkii SYL iyo dowladii rayidka ayaa ka hadlay dhulka Mirnaayada ee degmada Cabdicasiis oo ay isku hayaan dowladda iyo Xaaji Muuse Suudi Yalaxow. dhulkan oo ahaa xaruntii hore ee ciidamada badda Ex Mirnaayo ayaa loo sheegay inuu Muuse Suudi ka guuro si ay dowladda uga dhigto dhul safaaradaha caalamka ay degaan iyadoo Muuse uu diiday isaga oo ku doodaya inay siiyeen dowladihii hore. si kastaba haatee qoyska Maxamed Cali Dacar ayaa sheegay in dhulka la isku hayo uu ku jiro dhul uu lahaa aabood oo ay dowladda doonaysay inay dan guud ka dhigto halka Muuse Suudi uu isna xoog ku haysto. Cabdimaalik Maxamed Dacar ayaa sheegay inay dhulkaasi ku leeyihiin 2 boos oo dhinaca badda ka xiga xarunta uu Muuse Suudi Yalaxow ka degan yahay gurigii taliyaha ciidamada badda waxaana dhacday inuu dhulkaasi la wareegay Muuse Suudi Yalaxow kuna darsaday xarunta uu haysto. Cabdimaalik Maxamed Cali Dacar oo ku sugan Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixiyay sida dhulkaasi uu aabihii ku milkiyay iyo waxa dhex maray iyaga iyo Muuse Suudi isagoo cadeeyay in gudoomiyaha xilligan ee gobolka Banaadir ka mid yahay dadkii waanwaanta ka galay in dhulkooda looga qaado Muuse Suudi. Cabdimaalik ayaa soo bandhigay dukumiintiyo muujinaya lahaanshaha dhulkaas oo uu lahaa aabihii Maxamed Cali Dacar. dhulkaasna yeeshay sanadkii 1965 ayna lahaayeen muddo ka badan 54 sano. qoyskan ayaa waxaa isugu darsantay iyadoo dhulkooda markii hore uu awood uga haystay senator Muuse Suudi kadibna ay dan guud uu ka dhigay maamulka gobolka Banaadir waxaana haatan isku haysta dowladda Soomaaliya iyo senator Muuse Suudi Yalaxow. dhinaca kalena wasaaradda Batroolka iyo Macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la soo warinayay in isku koobtay wax ka bedelka sharciga shidaalka iyadoo shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Djibouti 17 bishan aanay ka qayb galin dowlad goboleedyada waxaana goobta tagay wasaaradda Batroolka iyo Macdanta iyo guddiga kheyraadka dabiiciga iyo biicada ee golaha shacabka. haddaba xubno ka tirsan wasaaradda Batroolka isla markaana codsaday magacooda la qariyo ayaa xaqiijiyay in wasaaradda Batroolka aanay casuumin dowlad goboleedyada. kooxdan oo su'aalo ka keenay
keenay sababta dowladda federaalka ay diyaarinta sharciga uga fogaanayso dowlad goboleedyada iyadoo wasiirka wasaaradda batroolka ku eedeeyay inuu iska indhitirayo talooyin ay u soo jeedinayaan waxa ayna cabsi ka qabaan in ay dowladda federaalka isku koobto qandaraasyada xaraashka iyo guud ahaan arrimaha shidaalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayay in baarlamaanka federaalka ay horgeyso sharciga shidaalka ka hor bisha Ramadaan si ay uga hormarto xilliga la shaacinayo shirkadaha ku guuleysta xaraashka oo ah 7 November 2019 iyo 9 December 2019 oo uu wasiirka saxiixi doono heshiiska shirkadaha ku guuleystay iyadoo isla bishaas la horgeyn doono golaha shacabka si uu u dhaqan galo January 2020 si kastaba haatee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda ugu sareysa dalka ayaa lagu eedeynayaa inay haatan doonayaan inay iibsadaan xaraashna geeyaan batroolka iyo macdanta Soomaaliya halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa Rajo Qaran TV dalxiisayaashii ku dhaawacmay shil ka dhacay Boortaqiiska oo loo duuliyay dalkooda hooyo diyaarad military oo nooca caafimaadka oo laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa caga dhigatay jasiiradda Madeira ee dalka Boortaqiiska si loogu qaado dadkii ka badbaaday shilkaasi oo ay 29 qof ku geeriyootay diyaaradda waxaa raacay 12 dhaawacna iyadoo 11 kalena laga soo saaray isbitaaladii lagu daweynayay darawalkii u dhashay Boortaqiiska iyo ninkii hagayay dalxiisayaasha ayaa kamid ahaa 27 qof oo ku dhaawacmay shilkaasi waxaana lagu hayaa isbitaal lagu dabiibaya xilligan shirkadda leh baska shilka galay ayaa sheegay inay baarayaasha kala shaqeynayaan waxa dhaliya shilkaasi oo ay ku geeriyoodeen 17 haween iyo 12 rag kuwaasi oo badankood ahaa dad howlgab noqday guud ahaan warkii aad ka daawanaysaan Rajo Qaran TV aqyare wanaagaynta si aad u heshaad wixii warar ay ku soo kordhagayga Soomaalida iyo daafaha caalamka subscribe saaro si aad noola socoto xilli walba